arrintaasi waadax u sii yara noqoto aan wax ka taabana markaa hogaamiyaha xun muxuu yahay bad leaderska tala noocyada hogaamiyaasha xunxun waayo markaan ogaano noocyada hogaamiyaasha xunxun waxay noo soo baxayo qofku inuu isagu isweydiin kara hadhow iska qiyaasi karayo mustaqbalka hadduu hogaamiye yahay iyo hadduu imika hogaamiye yahayba anigu sifada noocaasa ma leeyahay sideebaase aan ku dooran karaa hadhow ka ogaan karaa hogaaminta xun si aan u garan karayo hogaamiyaha wanaagsan iyo hogaamiyaha xun aan u kala garan karayo faa'iidada kale ku jiraysa waxa weeyaan followershipku ama dadka la hogaamiyaa waayo ay marka horeba u raacayaan hogaamiyaasha xun maxaa sababaya ku qasbaya maxay hogaamiyaasha xun u helaan dad raacayaal oo taageerayaal iyaduna waa question runtii ay muhiimadeeda le in la isweydiiyo marka noocyada hogaamiyaasha xunxun way fara badan yihiin laakiin saddex baa ugu caansan amba saddexda ugu commonsan aan kusoo koobi karana waxa weeyaan hogaamiye incompetent ah oo matalan aan ka eegina dhanka cajiska waa hogaamiye kartidii una ka maqan tahay hogaamiyahaas waxaan ku daraynaa inuu yahay bad leader waayo haddii aynu sababtan hogaaminta bad leader ugu darna waxa weeyaa laga yaaba qofkani markuu xilkan qaadanaya ama hogaamintan uu dalbanaya waxay doontaa ha noqotee in uu islahaa uu istuhmayay oo islahaa istijaabi laakiin markuu ogaaday kadib kartidiisii iyo hogaamintiisii waxaa laga yaabaa inuu arki karayo boqolaal kale qof oo kale kaga wanaagsan hogaaminta laakiin isma casilaan haddaad afrika iyo soomaalida iyo meelaha aad u fiirsato weli arki meesha hogaamiye mansabon intuu qabto odhanaya war meeshan waxaan islaa waxbaad ka qaban karaysaa laakiin ma awoodi karayo cid kale u dhiibta ama ciddaasa iga habboona ciddaasaan u dhiibaya arki maysid marka mar hadduu qofkii arkay shaqadii inay ku cuslaatay inuu xilka iska sii jeclaysto hogaaminta iska sii jeclaysto isagoo kartidii aan lahayn hawsha lagu qabanayay waxaan ku daranaa maxay liiska hogaamiyaasha xunxun bay ku daranaa marka waa dhanka kartida laga eegaya mar kale waxaa laga eegayaa hogaaminta xun marka la eegayo dhanka corruptionka laga eegaya waa ka hore waa qaa'id caajis kan damba waa qaa'id alfaasid weeyaan kii hore uu kasii xun yahay marka kuwani marka waa qolada iyagu hadday doonaan karti ha lahaadaan hawsha lagu qabanaya laakiin khayaanadooda badan dhacooda badan tuuganimadooda badan wax istabamaritooda badan marka waa faasidiin weeyaan hogaaminta nooca taa ka sii daran waxa weeyaan alqaa'id ashariir waa bad evil doers waa kuwa sharka ah fircoon iyo abujahal iyo hogaamiyaasha usii yihiin weeyaan waa qolada markaa xataa inay dhiiga dadka daadiyaan oo dadka noloshooda iyo naftooda aanay waxba laahayn iyo inay dhac iyo wax walba isku darsadaan xumaan oo dhan runtii inay ku iibsadaan aanay waxba ka ahayn marka saddexdaa noocba ayay soo hoosgelin karaan marka hogaamiyaasha xun soo hoosgeli karaya laakiin intaa way ka fara badan yihiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay marka cajiibka ahi haddii waxaa dhacda ay fududahay in la arko hogaamiyaal xunxun oo haddana ay la socdaan dad badan oo taageersan followers leh bal weliba dad jecel haysta marka maxay ku dhacdaa dan qolooyin researcho kala duwana la sameeyey matalan Robert Kelly oo kale iyo Kellerman oo kale haddaan soo qaadano labadoodaas oo kale Robert Kelly 5 qaybood buu qaybinayaa dadka la hogaamiyo raaciyaasha laftooda oo leeyahay qolo wuxuu u bixinayaa dependent weeyaan oo ku tiirsanaantooda aad u badan isla markaana waa passive oo ma hadli karaan waxna ma sheegan karaan waxna kama hor iman karaan marka waa independent-kooda aad buu hooseeya waana passive dadka noocaas oo kale markaa waa qayb weeyaan qayb kale way fududa markaa boqolaal hogaamiye shariir baa sheegtay faasid baa qofka noocaas inay cid kasta ku daba feelaan because mana hadlaan waxna ma diidaan ku tiirsanaantoodana way badan tahay xor bay inay yihiin independent ma dareemayaan qolada labaad markaa waa qolo iyadoo qolada ka yara duwan oo waa qolada yes people loo yaqaano waa guulwadayaal iyagu markaa qoladan iyagoo sidii hore wax independent-kooda u hooseeya laakiin kuwan waa active xorna maaha haddana waa active saa daraadeed waxaa laga yaabaa inay sababa jira daraadeed sababahaasoo iyagana gadaalka sheegi doonaa inay ku raaci karaan
hogaamiyihii xun oo qaldan ha noqoto individual needs baahi shakhsiyaad ha noqoto group needs mararka qaarkood waxaa laga yaabaa wax loo ballan qaaday mararka qaar qabyaalad sida Soomaalidu badan tahay inuu shakhsi qabiil ahaan qofka ku taageera laga yaabaa waxay doontaa ha noqoto qofka uu dabagelaya oo raacaya haddana waa active weliba uu dagaalamayaa uu doodayaa uu taageerayaa codku la raadinayaa uu garab taagan yahay si kastay tahay qolada saddexaad waa dameeradaan raacday waa sida dadku u badan yihiin average-ka waa qolaha hadiyo jeer majority-ga aagata xumaada ambayaan wanaagsan mar haddii la arkay la wada aamusay waa aamusi haddii la kaco la mudaharaado way kacayaan iyagu waxay u baahan yihiin marka hadiyo jeer motivation bay u baahan yihiin iyo cid hagta marka waa majority-gu ma raacan iyagu meesha loo badan yahay qolada kale waxa weeyaan qolaha iyagu high independent laakiin passive waa high independent waa xor weeyaan way cid kuma tiirsanaa laakiin waa passive marka negativity-gooda badan oo active facaal maaha wax shaqaa ma qabanayaan kaliya ta xorun weeyaan marka dhanka taban bay iyaguna wax ka eegaan qolada ugu dambaysa marka waa star flowers waa xidiga weeyaan xidigaha raacayaasha amba la hogaamiyaasha xidigahooda weeyaan kuwani marka waxay isku darsadeen independent oo weliba high iyo active ayay isku darsadeen waana dhaqaaqayaan oo ficil bay la imanayaan waana xor gudaha xor bay ka yihiin maskaxiyan labada markay isku darsaan iyagu waa xidiga weeyaan qoladaas waa qolada ay fududeeyeen hogaamiyaasha mustaqbalka ay ka soo baxaan haday shirkatay waa laga dhaxelayaa haday daltay waa laga dhaxelayaa haday organization tay waa laga dhaxelayaa meel walba waa qof active hadana xor oo matalan hadii uu inda la'aan wax kuma dabagalo hadduu arko hogaamiyuhu inuu saxsan yahay wanaagsan yahay waa qofka ugu horeeya ee la shaqaynaya ee taageeraya ee aan ka hor imanaynin ee hawl kasta la qabanaya ee hawsha u fudaydinaya weliba laga yaabay inaad adigu kaba karti badanta hogaamiye laakiin mar haddaad arkayso inuu shaqadii si fiican u qabanayo adiguna waad la dhimanaysaa hadduu arko hogaamiyihii leexsan judhaba wuu hadlaya wuu toosinaya bal muu walaalkii ahaado bal muu adeerkii ahaado maybu ku leey ilaahay lama hortagayo suurtagalna maaha inaan dulmiga kugu raaco kartidaasaad leedahay laakiin arrintaa waa kaaga soo horjeeda xadiiskii nabiga sal slam maxaa walaalka u hiili gar iyo gardarraba hadduu dulmaniyo haddii la dulmiya markay saxaabadu yidhaahdeen haddii la dulmiyo garana laakiin isagiyo wax dulmiyo see lagu hiilin karaya dulmiga ka qabo toosi waad qaldanta ku dheh haddii markaa noqoto inaad ka hadhona ka hadh oo ha taageerin idan qofkaas waa qof soo jeeda waana xor mana indhalaa indhiisana way furan yihiin kuwaasunbaa hadhow hogaamiyaashu ka soo baxaan isla hogaamiyaasha wanaagsan markay xagga sare joogaan ee manaasiibta hayaan qolada noocaasa way soo dhaweystaan waana sign iyo calaamad lagu garto hogaamiyaasha wanaagsan laakiin kuwa daciifkan isku kalsooneen kuwa laftooda way iska fogeeyaan sababtoo ma rabaan inay kasoo agdhawaadaan marka markay ishelaan hogaamiye wanaagsan iyo qoladan u dambaysa starska ayay ugu fududay marka ina shaqadu dhaqaaqada marka su'aashu waxa weeyaan marka sidee baa looga qayb qaadan karaa u noqon karaya markan follower ahay ee aniga laga hogaaminayana inaan ahaado qofka facaalka ee wax qabanaya wax taageeraya wanaagga la shaqeynaya xumahana ka dhiidhiyaan oo galaaneen haddii aan hogaamiye aan ahayna dadka aan u kala garan karaa igu fududaanaysa dadka noocyadooda dadka kala wada duwan nooc walba ina kashiibka lagu tilmaamay ee passive-ka inaan dhiiri gelin karayo aan dhaqaajin karayo aan empower garan karayo kan negative-ka inaan u dul qaadan karayo inaan saameyn karayo ama kan u dambeeya starska aanayna ka faa'iideysan kara kartidooda iyo waxqabadkooda oo garbahayga yaa noqonaya waxaan ku duulaya marka hogaamiyina waxa la rabaa inuu dadkiisa kala yaqaano hogaaminayo la hogaamiyaashina waxa la rabaa inaad hadaad marka la hogaamiyatayna inaad garato doorka aad ku jirto iyo kaalinta aad ku jirto marka muhiimadda inta lag balad mesela hadaynu xilliga saxaabada kale ku noqono haddii afar nooc aan ka dhigno hogaamiyaasha iyo la hogaamiyaasha afar xiriir oo ka dhaxeeya dadka marka waxaan ka soo qaadi karanaa qolo aan mesela nidhi idaha waan garanaa waa u lax iyo jamaceeda marka ido ay hogaaminayso lax ay hogaaminayso waa ciidan ida the army of sheep waxa hogaaminaya lax ba hogaaminaysaa qolada labaadna waa army of libaxyo weeyaan lions waa ciidan libaxyo oo uu hogaaminayso ay la hogaaminayso waa ciidan libaxyo oo ay la hogaaminayso qolada saddexaadna waxa weeyaan waa ciidan ida
laakiin waxa hogaaminaya qolada libaax baa hogaaminaya qolada u dameysa waa libaaxyo u libaax hogaaminayo marka waa afar xaaladood oo mar walba dunida laga heli karayo طبعا boqol mar walba maaha laakiin waa majority laga yaabaa marka leena ido libaax hogaaminayo inaanay dadku wuxuu hogaaminaya aanay wada idaahayn laakiin libaaxyo ku dhex jira laakiin majority waxa laga yaabaa inay sidaa u badan yihiin marka xilligii cali bin abu daalib khaliifada ayaa radiyallahu anhu ninbaa wuxuu ku yidhi ay weydiiyeen maxaa qaldan oo ka qaldan khilaafadaada oo ay dhibaatadii mushkiladu u badan tahay xilliga Umar bin Khattab radiyallahu anhu iyo Abu Bakar sidan arinku mu ahayn maxaa dhacay waqtigaaga Ali radiyallahu anhu ismoo dhibin wuxuu ninkii ugu jawaabay Abu Bakar iyo Umar iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka horeeyba oo macalinkoodii ahaaba aniga oo miidhan baa u ahaa flowers aniga oo miidhan ayaa u ahaa flower la hogaamiye laakiin maca asaf aniga waqtigayga adiga oo miidhan baa flower ah and that's short explanation fahan kooban oo ka fahmi karana muhiimadda leedahay sida ay muhiim u tahay labada dhanba ay muhiim u tahay Ali muxuu yidhi aniga oo miidhan baa u ahaa flower iyo hogaaminayeen libaax iyo hogaaminayaan baan ahay libaax ayaan hogaaminayay inta kale libaaxyaan ahay laakiin maanta aniga maca asaf adigoo miidhan baa ii ah la hogaamiya la raaciyaaliya